والصحافة كان أنا ذكي يعني صحافة وقوي يعني وحنو قبلني وحنو لقي سني وحلقوا شيء والصحافة أو كذي تليها جودة إذا ما سومالان نوح والفهم وين أما والقرن وين وحى وجود شيء حتى اللي عد كنت على السجى كنت على نوح بيكنت على تلك وحب لقى هذا يا دبعتي لا وإذا ما دي وهنن كرواي حتى يبرق قبتين إياه حتى يبورها شو جنبه إذا كيو هنن كرواي يا لبتي ستالله ما أنت لك هذا لا معناه إنه يزوج عسلة دوقة فيها إنه عسلة بقى كوهبون قاب كوهب لنا كنت ما هي قاب واحد بيقف بالهذا ما مدح الله اللي بتقولي هذا خطر بيك واحد حاول واحد كسبك والله خطر بيك واحد أنا قبل لقول شيء اللي ما تاجن ما تاجني هوليها ضيع ذي بعنو هينا وحيو مركو كهذا يعاره قاب كوجه هذا وحوها قاب كدول قاب ما تحترمه وحموقتي إن أنا عارف وشيء هاي إنه بيروتشيد هاي أيام نوم موقتي تحسنا ما يهين إنه قاب حضر كاسة وصورده حتى يدم الحوينا يسكوك هنا وأركي دونتا وعدان دونتا هذه كلمة الحوينها مرة تلعبك قاعد دون بيت أرجع هذا كان نحكي هذا ما كانوا كجوابنا runtii halka waxaanu ka sheegaynaa maanta in badan baan warwareegaynay oo hadallo badan aanu iska daynaynay in badan baan nuuxin laga warwareegay mar hadduu isagu iskeenay miiska oo hadlay waxaanu leenahay horta nusqaan cidda ku taala waa isaga inta tagtay ee ka tagtay ciidanka qaranka isaga waa tagtay hadday tahay guri iyo hadday kuwa ka horeeyay tahay iyo hadday caaro tahay intuba cadaalad iyo dulmigu kula kacay ayay uga ka tagtay annaguna wixii uu kala didiyay baanu halka u fadhino la dhoobdhoobayay oo suldaanka guud iyo guddidu hogaaminayay halka u fadhiday arikaas haddaan lala ogeyn waxaan la nuuxin talaabo laga qaadaa nuux degdeg hadday cidi gacan ku dhigla tahayna waxaan leeyahay nuux baa gacan ku dhigla gacan ku dhigla waa adiga adaa boqolaal dilay hadduu cidi qeyr mas'uul tahayna caarana dee ninkii xilka u dhiibtay hadduu gacan ku dhigla yahay ee u magacaabay aduu ahaa calankii joogay laamiga bariga maanta ceergaab u yaallaa cidda ku soo xaraysana waa nuux waxaanu leenahay haddaanu kula qabin madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa nuux inuu maanta tallaabo ka qaado degdega xilkan laga qaado arrinkaas dee wuxuu dhalo nuuxow aday ku taallaaye yuu kula qadhaadhaan wixii ka soo baxa hadalka maanta aad tiri waxaan leeyahay madaxweynaha war ciidanka intiisii dabaraa nuux bay ka sii socotaa inta tagtayna isagay ka tagtay haddaada dalka ka dabaqabatayn oo aan degdeg wax looga qaban maqash bari iyo galbeed meel walba waa qaylinaysaa dee kubaddu hadda joogi mayso nabadguddo halkaa keliya hadday meel xaggan siraadato meel walba waa imanaysaa waxaan leenahay sayid maxamed cabdullaahi xasan baa waqtigiisii nin xero ku xareeyey wuxuu yidhi waa la dilayaa ninkaa ee aroorta ooda aada ugu adkeeya markaasaa lagu dhacmiyey oodii markii cid waliba ka ruuxday buu keligii isla hadlay wuxuu yidhi waa lay dardaar warinayaa darajada iyaa og cirku waa daruuraynayaa goorudi iyaa og aniga iyo daraawiish midkii dhiikadii iyaa og nuux waxaan leeyahay waa dardaar warinaysaa ee carre haddaad soo qabanayso hadduu fasax ku yahay haddaanu cidla joognayna haddaanu ka baxnay dadka reer somalilandna waxaan u sheegaynaa haddii cid dembi lagu qaadayo dembiilaha ha lagu qaado cidda dembiga leh nuux wuxuu istaahil ku yahay in la geeyo heeg jamhuuriyaddii somaliland la lahaa ee la odhanayeyna maantuu burburiyey sidaa darteed waxaanu dadka u soo jeedinaynaa kuwii uu xasuuqay iyo kuwa uu had yeer ula soo socdo xasuuqaba waxaanu leenahay dacwaddiisa ha loo gudbiyo heeg oo caalamka ha loo bandhigo madaxweynahana waxaanu leenahay ha ku darsamin ninkaa ha raacin haddii wax ku hadheen ha raacin ee ka soo hadh oo tallaabo ka qaad oo dadka tus inaad madaxweyne u tahay
haddaad reer tihiinna oo dee habar awalnimo ku hadlaysaan oo ku hanjabaysaanna dee waxaad doonaysaan fuliya idinkama hor joognee haddaa fasax u tihiin wixii aanu qabanaynay odaygayagii ismaaciil muuse berigii yidhi halkan markii maxamed siyaad barre hanjabaadda iyo madaafiicda iyo isu rookaayo daba dhigay nabadgelyadii aanu dacalkaa ku haynay guntiga ku xidhaynay xarigga maantaan ka furay muuse iyo muxuu ahaa nuuxba waxaan u sheegaynaa haddii nabadgelya jirtay xariggaanu haynay oo aanu cidlo taagnayn waxna aanaan tarayn xarigga maantaanu ka furay ninkii soo dabaalin lahaaba isagay u taallaa waxaan xasuustaa gabayga xasan tarabi ahaa waraabaaci ayay ka soo cararaa aabbooyin carruurtaasaa lagu sabaayay ka caqli weynuunku jalanka ciidanku hadduu annagana doonaayo fadsax buuye maanta ha nala ballamo gadhow lagu sii daaya gafurdhaaf waa bilahi tawfiiq waxaanu leenahay nuuxtaani gacmaha haddii lagu hayey maantaanu ku fasaxnay oo wixii aad samaynayso caari maanta ku samay wuxuuna yidhi ninkii geela ku soo heestay walleedeeroy wax dambeeyaba darka ceelkii dawgu waa nabad buu yidhi haddii sariirtaada hargeysi nabad tahay waa ku soo gaari doontaa gacondhadu carab waxaa korneyl ka tirsan ciidamada waana ogyihiin ciidamadu way yaqaanaa nin dhib badan oo dhibaatooyin badan sanaa ka geystay buu ahaa halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhnaa isagoo 4 nin loo haystay dilkood rag baa ololeeye oo ninkaa la sii daayaa la yidhi weli kiiskiisii sidii buu yaallaa ee maxkamadda waxaa yartay isagoo joogaa haddana baanduulo laga dhigay halkaa markuu tegayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdoo fadhiista haddana waa ka tegay puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasana ka tirnaa 10 qof kama yara qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shicib waxaan arkaya dad uu doodaya abaa sanaa kula kulmay ninkaasi la iska daayay waa geesi goor buu noqday nin qaran nin ummad islaam xasuuqay inuu geesi noqdo in la qisaasa bay ahayd si isagana dembiga ilaahay uga dhaafo oo dadkuu laayay loo qisaasa bay ahayd laakiin in loo qaato geesi anu waxaan u arkaa ana shakhsiyan inay tahay dembi ka u doodayaana hadduu wax u tarayo dembiga uu sameeyey ha laga jaray inuu ogolaado in laga jaro maxkamad la saaro laakiin iska socow dad baan laayay waxaan doonaan sameeyey ciidan baan laayay haddana iska soco anu waxaan u arkayaa khalad qarankuna waxa weeyaan sharci buu leeyahy sharcigaayna kala hagaan qofkii dembi galay in maxkamad la saaro sharciga haddii odhanaya marka waxaan leeyahay dadka u doodaya caare u doodaya waa dembiile caare waa dembiile qaran oo weliba ku dhiiran hadda oo isla geesi baa tahay inuu dad laayay arrintaasina waa taa marka dadku haddaanu xaqiiqda aanu la fays karayn oon xaqiiqda laga leexleexdo dhibaatada ay leedahay waxaan leeyahay ciidamada idaga goostay dan idinma jirin ee xoolihiin bay cunayeen dagaal laydinma gelayn waxna idinmay tarayn kuwa noocaas oo kalena ha ka tagaan qaranka uma baanayn 25 sanayn iyo sidaa kusoo jiray niman waxba tarayn iyaan meesha joogin taa carrana waa caynkaa oo ninkaasi hawsha waxaasoo danbiga sool buu dhibaato ka galay sanaag buu dhibaato ka badan ka geystay haddii lagu daayo oo geesi la yidhaho waa dhibaatadeeda leedahay yaa dembiilo noqonaya marka kuma dembiilo noqonaya waa in equal loo haadaa sharciga iyo dastuurka waa in loo sinaadaa
shirkayga jirayd wuxuu maagan yahay intaa weeye inaan dadka ka dhaadhiciyo inaanay ciidamadaasi kuwa wax u tara iyaga aan ahayn ninkaasina xaalkiisu caynkaa yahay waanad mahadsantiin